حوبادي بدوها بابي من خلابي إيلو حوبادي بدوها بابي من خلابي إيلو وعليه يتيمي أحدي سيدان كويغي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada dhammaan asxaabteeda aan jecelahay meel walba adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena. magacaygu waa Abbas, channelka daawanaysaana waa Abbas Golden. maanta waxaan rabaa in idin soo gudbiyo program xiiso badan oo magaciisu yahay hal dhacdo iyo fikirkaaga. sida aad title-ka ka soo akhrisayba, programka waxa igu wehelin doona ama igala qayb qaadan doona laba nin oo qaali ah, magacyadoodu kala yahay Zakid iyo Mohan. si live ah ayay igala qayb qaadan doonaan, fikirkoodana waxay ku dhiiban doonaan isla muuqaalka gudihiisa. idinkuse fikirkiina waxaad ku dhiiban doontaan committee-ga, waana fursadda kaliya ee aad haysataan. aan bilowno. Zakid, ku soo dhawow programka. waa mahadsantahay walaal Abbas. waana ku dhownahay programkaaga, runtii sida ugu quruxda badanna waa kala qaadan doonaa insha Allah. Mohan, aadna ku soo dhawow. waan dhawahay walaal Abbas. waana kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noo soo casuuntay noo keentay halkan. runtii si qurux badan oo kala qayb qaadan doonaa programkaaga, waana salaamaya dadka ugu xiran dhamaantiin. waan salaam idinka ayaa mudan si guud. okay, programkeena ay bilaabano. programka waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaal runtii markii aan daawaday aniga agteeda ka noqday wax qariib ah, idinkana 99% uu ka noqon doono agteena wax qariib ah. muuqaalkan wuxuu quseeyaa laba nin oo saaxiibo ah, midba wuxuu leeyahay xaas, balse ninkan kale ee saaxiibkii ah waxaa dhex mari doona dhaqamadaas. waa dhaqamo nin kasta oo rag ah uusan jeclaysan lahayn in lagula dhaqmo. maxay tahay? ninkan saaxiibka la ah ninka reer kale waxa uu caadaystay in uu mar walba oo saaxiibkii tago uu u soo dabamaro guriga, markaana uu la sheekaysto, la farka ciyaaro, mararka qaar wax u dirsado sidii inuu guriga leeyahay dumaashadii ama ninkii saaxiibkii ahaa xaaskiisa. balse la yaabka meesha yaalla ee iga yaabisay idinkan idiga yaabin doona waxay tahay ninkani waxa uu samaynayo waxaa raalli uga ah ninka reer kale. sideed noqon lahayd haddii saaxiibka uu caadaysto inuu gurigaaga ula dhaqmo sidii inuu yahay ninkii reerka lahaa? aan idiin bilaaba muuqaalka si aad ila aragtaan waxaan idiin sheegayo. ماشي والله ماشي فاضي. كل شيء يا والله. ما شاء الله. ما شاء الله يكون. ماشي. ورناك واودي دماشي سيدي دماشي حقود عادي اسمع وين موجود كل سيدي قلت هاي شو بالك من العيون يا بندار والله. لا قلت هو كتبان كيسان كتبان دماشي دماشي حتى مع انه واخد تي في كانوا دردي واتق انا مركان ما نروح كلمه داولنا زبع ما تعرف عيال ملاوت انا دار الناس اي بيبي زبع ورا
soo dhaweey masii soo بس لا سمعك يا لبي أنا مرة بيتقن حمادة صاحبة مرة سوري معنا إلا سود دوي ويا هدان جو يا هدان فوكس حاسكي أنا ساسا رموت ورا runtii waa la yaab waxaynu caadiyo dhaqan u leenahay haddii aynu nahay dad muslimiina kasakoo muslimnimo haddii aynu nahay dad soomaaliya waxaynu caadiyo dhaqan u leenahay in aynu ixtiraamno xushmayno familka ay leeyihiin dadka asxaabtaynoo ah ama dadka aynu walaalada nahay wada dhalanay haddaba waxaynu isku dayeynaa inaynu qiimeyno dareenka aynugu leedahay dhacdadani isla markaana aynu ka dhiibanno qof walbaaba sida uu arko ama fikirkiisa aan kugu bilaabo Zaakin sidee u aragtaa dhacdadan ama marka aad daawatay muxuu noqonayaa fikirkaad ka dhiibanayso wallaahi runtii waa dhacdo anigu aan dhihi karo runtiina aanan u lahayn dhaqan iyo caado diyaarna hadda muslimiina kasoo muslimnimo ee Soomaalinimana aysan ku jirin dhaqankeeda kamid ahayn sidoo kale marka laga yimaadana ninka ragga ah runtii xaqiiqatan familkiisa iyo khaasatan xaaskiisa waa meesha basiga waa noloshiisa haddii meesha basiga ku ah noloshaada ay noqoto meel saaxiibkaana ku soo xisaabtami karo iPhone walaalka iPhone qof kale noloshaada base ma la dhigi karaa runtii anigu waxaaba igala sii daranba ninkan raallida ka ah ninkan xaaskiisa saaxiibkii oo la dhaqmaya sida isagu inuu reerka leeyahay kaasaa waxaaba aniga ilaa serious ila aba ilahay waa wax runtii aad exactly aanu fikirkayga intaas ku soo koobiya oo mahadsantahay runtii si xushmad leh kugu mahadcelinaya fikirkaaguna waa mid dad badan oo ku daawanaya ay kala mid noqon karaan runtii iyaguna ay u hadli lahaayeen sida aad u hadashay maanta haddii barta aad fadhido ay fadhiyaan thank you waxaan u gudbayaa muhaan adna fikirkaaga sidee u aragtaa dhacdadan marka aad daawatay runtii ama aad maqashay muxuu noqon karaa fikirkaad ka dhibanaysa wallaahi sax horta waa dhacdo cajiib anigu agteeda waxaan dhihi karaa waa dhacdo runtii incredible wax dee aan caqliga geli karin ah runtii aniga fikirkaygu sidaas u leeyahay waana mahadsantahay thank you aad baad mahadsantahay hadda maahan sidoo kale waan kuu mahadcelinaya runtii waa dhacdo nin walba ama nin kastoo raga ay taabanayso uu ismoodayay inay isaga ku dhacday ama runtii haddii ay ku dhici lahayd dee ragga qaar falal sida taariikhda aynu maqalnay badan ragga qaar falal xunxun baaba ka suurtooba haddii arrintan oo kale dad asxaabtooda ama walaaladooda ay kula kacaan wayna dhacdaa 90% dadkeena horeynu u wada aragnay intaynan muuqaalka ka bixin waxaan idiga codsanayaa inaad muuqaalka noo like garaysaan si uu noogu gaadho dad badan noona subscribe garaysaan si aan u helno dhiirigelin buuxda oo aan maalin walba wax iigu soo diyaarin karno waad ku mahadsantihiin daawashadiina qiimaha badan sida aad noola soo gaadhay muuqaalka dhammaadkiisa intaba waxaan kaaga mahadcelinayaa si xushmad ku dheehan tahay waxaana kaaga tegayaa inta ay muuqaal lamid ah kasi qurux badan ku kulmi doono salaamullaahi calaykum waraxmatullah